I hope inaad caafimaad qabtaan meel kastood joogtaan. Maantayda waxaan rabay muuqaalkan markaan duubay inaan hadlo oo aan waxyaabo kale ka hadlo, balse codka baan ka xiray muuqaalkan. Cod kale ayaana saaraya waqtiga hadda la joogo. Sanad cusub ayaa dhalanaya. Marka wax yaraan rabay inaan sanadka cusub ka hadlo. Sanadka hadda lagu jiro gabagabo waaye. Waxyaabo badan ayaan qorsheysanay 2020 oo aan rabnay inaan sameyno 2021. Mar inta badan waxaa dhiganaa ahdaaf aad u waaweyn iyo waxyaabo culculus. Waxaan rabaa inaan sameeyo. Waxaan rabaa inaan ka dhabeeyo sanadka inta uu dhammaan. Markii aan wax qorsheynaynana wax aad u weyn oo buur oo kaleeta oo aan la dhaqaajin karin ayaan buug ku qoranaa. Sida hadda qof inuu dhaho kale waa macquul inuu ka dhabeeyo hadafkiisa, balse qofka hadduu dhaho maalin kaste 5 juz oo Quraan ayaan akhrinayaa, waxaa laga yaabaa markuu la bari sameeyo inuu maalin saddexaadka ku dari waayo. Laakiinse hadduu yiraahdo maalin kaste 5 daqiiqo ayaan wax akhrinayaa, ama Quraan ha noqoto ama buug ha noqoto ama wax uu qoray ha noqoto ama jimicsi ha noqoto. Hadduu yiraahdo maalin kaste 5 daqiiqo kaliya waxaa sameynayaa, waxaa hubaal ah inuu wax badan u wadi karo caadadaas oo ay noqonayso caado u hirgasho qofka oo markastaba uu sameeyo wixii. Balse haddii uu yiraahdo maalintii 2 saacadood kala joogsi aan lahayn ayaan workout sameynayaa, way ku adkaanaysaa. Marka waxaa jirtay memoir uu qoray Will Smith oo ah jilaa kulligiin waa taqaaniin. Wuxuu qoray memoir ku qoray noloshiisa oo uga hadlaya asagoo aan waxba sugarcoat gareyneyn oo waxba aan qarinayn. Waxyaabaha uu sheego dhan run aad u qaraar ayaa ka buuxay waxyaabaha uu buugaas ku qoray. Marka waxaa ku jirtay sheeko yar oo cashar laga baran karo markuu qofka hadaf uu sameysanayo ama waxyaabo uu rabo inuu ka dhabeeyo uu qorsheynayo. Sheeko yar oo aad u xiiso badan oo wax oo meel kaleeto meel qoto adiga si qoto dheer wax noo tusayso. Sheekadu waa sheeko very interesting ah. Wuxuu yiri growing up in Philadelphia, in West Philadelphia, markii aad ku yaryaraayeen asaga iyo walaalkiis la yiraahdo Harry ayaa maalmaha ka mid ah aabahood dukaan ay lahaayeen ayaa darbi u dhawaa. Wuxuu bilaabay inuu liqliiqdo darbiga soo dumi raba ayuu arkay odayga aabahood ahaa. Aabahood markaasuu ku yiri Harry iyo Will Smith darbigan inaad dhistaan ayaan rabaa. Darbiga ayuu dumiyay. Markaasuu u dhiibay wuxuu u keenay caradii, shamiitadii iyo bulukeetigii ayuu u keenay. Wuxuu yiri come rain come sunshine, sanadaha idinku qaadato haddii ay rabto, laakiinse anuu darbigaas oo taagan ayaan idinka rabaa. Sanado ilaahu ma idinku qaadato, darbigaas oo dhisan ayaan idinka rabaa. Say maalinba bulukeeti meel u saarayeen. Ciyaalkii daaleen, iskuul baa la aadayaa, fasax baa la gelayaa. Waqti dheer waqti aad u dheer ay darbiga ku qaadato. Ciyaalkii way dhameyn waayeen. Markay meel dhex marinayaan ayaa calaacalayay deyn waayeen. Ilmihiisay u calaacalayeen, labadii wiil u calaacalayeen ayuu odayga aabahood ahaa maalin ku xanaaqay. Isagoo aad u xanaaqsan ayuu darbiga soo istaagay. Markaasuu wuxuu ku yiri joojiya ayuu ku yiri. Wuu ku amray inay joojiyaan. Darbi maahan waxaan ayuu yiri. Waa bulukeeti midba mar saara si fiican meeshii loogu talagalay. Place each and every brick in a perfect manner. Positionkii loogu talagalay dhiga bulukeetigaas. Darbiga ha saarina diiradda ayaan la saarin darbigaas weyn oo aad dhisaysaan. Diiradda waxaad saartaan bulukeeti inuu wuxuu yahay la isku geeyay xabadba si wanaagsan meeshii loogu talagalay u dhiga. Kadibna darbigu wuu iska dhamaanayaa. Marka wuxuu yiri Will Smith buug ku qoray quote, when I focused on the wall the job felt impossible, but when I focused on the brick
everything got easier. markuu diirada saaray derbiga uu ka walwal weyn ayaa saarnaa, wuxuu lahaa waxaan goormaa la dhameynayaa, waxaan waa wax aan la dhameyn karin, waxaan waa waxaan laga dhabeyn karin, waxaan waa wax dad xoog weyn u baahan, waa dad waaweyn u baahan, waa maaragtay dad xirfad leh oo xoog leh muruq leh wax u baahan inay tahay ayuu arkay. markuu derbiga saan u fiiriyo wuxuu islahaa derbigan aad ku dheer sidaad u dhisaysaa, oo walwal weyn ayay ku abuurtay. balse markuu aabahood meel kale wax ka tusay oo qaab maaragtay psychologically u bedelay, qaab maskaxiyan u bedelay ciyaalkii, wuxuuna ku yiri derbiga ha saarina, diirada ayaan la saarin derbiga, waxaad ogaataan waxaan inay yihiin bulukeeti xabadba meel la dhigayo sidii ugu habooneyd. haddaad u dhigtidna derbigu iska dhamaanayaa, hadhowtana adinku bulukeetigaasoo kaliya diirada saara, waxba ha fiirinayna derbiga iyo weynankiisa. marka sanadka cusub waxyaaba aad u badan ayaan qorsheynaa, waxyaabahaasna inta badan kama dhabayno sababtoo ah waa derbigaas oo kaleeto hadeertan uu ka hadlayo ninka jilaaga ah, oo uu leeyahay wax aad u badan oo impossible ah ay ahaayeen, wax aan laga dhabeyn karin, wax aad rafaad loo mariyo iyo tacab badan oo marnaba aan laga salgaarin ayay u ekaayeen. laakiinse markuu aabahood u bedelay qaabkii u fakarayeen maskaxiyan, midda kale ilmaha markii wax loo dirayo haddii lagu dhaho sameeya, by all means waa inaad sameysaan, sameeya waa idin garaacaya kan sameeya, oo ilmihii loo caga jugleeyo ama si qasab ah wixii loogu diro, inta badan si wanaagsan ilmihii uma sameeyaan wixii, kumana raaxaystaan xitaa. laakiin ilmihii markii meel kale wax laga tusiyo oo si caqli ahaan ah ilmihii loo sirsiro la dhaho waxaan science u sameeya ama wax barta, si fiican u akhriya casharka, si fiican homework uga shaqee, markaa weynaatid haddaad jeceshahay inaad noqotid scientist way kuu fududaanayaan, you're going to become the best scientist adduunka soo mara, science-aan ayaad noqonaysaan. wow aadaan u jeclaa aniga science-ka markii aan yaraa, hooyo science-aan samee, cunugaaga aad dhiirigelisid, cunugii moraal ayaa gelaya, xitaa cunugii waxaa arkaysaa haddii xitaa hurdahaysa xitaa adkaysanaya oo sii qoraya casharadii homework-aha loo soo diray ayaa arkaysaa. balse cunugii haddaad qasabtid wallaahi oo si xoog ah aad u isticmaashid, wax hagaagay malahan. maalin ayaan waxaan imid iskuulle aad u fara badan hadeertaan wadankan ah, waa lagu sawiraa derbiga, waxaa ku sawirnaa derbiga dameer, nin ayaa wuxuu rabaa dameerka inuu socdo oo uu dheereeyo, dameerku inuu dheereeyo oo uu socduu rabaa. markaas ayuu subxaanallah ninkii dameerku saaran yahay ul dheer buu qaatay, caws buu afka ooga xiray, xarig buu afka ooga xiray ushi, xarigaasna waxaa ka laalaado lagu sii xiray caws. markaasuu dameerku saaran yahay, ninkii gacantii buu saan u taagay, cawskii buu horey ka tusay dameerka, cawskii markuu horey ka tusay dameerka cawskii buu ujeedaa inuu cunug rabaa. marka dameerkii meeshii laga ulayn lahaa, dameerka asagaaba ordayo cawskii buu ceyrsanayaa. so psychologically markii dadka sheekadan waxay kaleeto ku tusinaysaa ina psychologically markii wax dadka maskaxdooda la bedelo, inay waxyaabo u arka in aan la sameyn karin inay sameynayaan, waxyaabo aad u rafaad badan, waxyaabo ay u muuqato inay mustaxiil tahay inay qofkii uu sameynayo, sababtoo maskaxiyan dadkan waa la bedelo, waa dad bedelan maskaxiyan. marka meeshaas dameerkana waxaan kusoo xasuustay sheekadan Will Smith. marka I don't know, I think oraah Swahili ku qorneyd oo ah usitumie nguvu tumia akili, xoog ha isticmaalin caqli isticmaal. subxaanallah. marka xoog oo ahaa dameerka wad uleyn ka dhaayo, wad adigina waa daaleysaa, dameerkina hadee waa dhibaatad u geysanaysaa, waa xawayaankana in la dilo ma banaana oo la xanuujiyo, wax aad u xun waaye xawayaanka in la xanuujiyo, oo maaragtay aad u xun waaye, aad u xun weliba xawayaanka in la xanuujiyo. xawayaanka waa manaaficad ay noo leeyihiin, waa ku faa'iideysanaynaa sidii adigu jeceshahay u isticmaali kadhaa. waa qalanaysaa in dameerka biyuhu kuu qaadaya, dhuxushu kuu qaadaya, waxyaaba badan ay kuu qaadaya, dad ayaa xitaa ku safra dameerkii. marka waxaa lagu leeyahay usitumie nguvu tumia akili, caqli waa inaa isticmaashaa wax kastoo adduunka. haddana waqtiga hadda la joogo waqti aad u adag ah,
adduunkan hadda la joogo, waqtigan la joogo, hadda aad tiraahdo wax kastaba xoog baan isticmaalayaa, aad baad u dambeynaysaa. Qofka mar kastaba caqliga isticmaalaya ayaa kaa horumaraya. mar kastaba qofka caqliga isticmaalaya, ama ha ahaato bulshada dhexdeeda marka la joogo, xitaa dadka ay wada nool yihiin, mujtamacii dadka isqabanayaan, qofka mar kastaba caqliga isticmaala baa guuleysta. Laakiin qofka rabo inuu xog isticmaalo, qajajacda, muranka, maaragtay anaga idinka fiican, anaga saan ah, anaga dadka maaragtay narrative-ka noocaas isticmaalo kaleeto, inta badan horumar ma gaaraan, aad bay u dambeeyaan. waa dad raba inay wax laga soo tagay kumanaan sano ka hor inay waqtigan hadda la joogo u shaqeyso. waqtigan hadda la joogana adduunku wuu isbedelay, caqli ayaa hadeertaana lagu meel marayaa waqtigan hadda la joogo. Marka ahdaaf yaryar oo aan dhigano, oo sidii hadeertan bulkeetigaas oo kaleeto aan u fiirino, aan dhahno maanta waa mid qaad, hal xabo qaad, waxbana aana fiirin derbigaas 20 feet ka ah ama 10 feet ka ah, aanan focus ka saarin, diiraddanadana aan saarno waxaan yaryaroo markaasayto aan waxaynayno. You have to enjoy the process. wax kastoo aad sameynaysid, wax kastoo nolosha aad sameynaysid, ama buug aad qoraysid ha ahaato, ama muuqaal aad duubeysid ha ahaato, ama jimicsi aad sameynaysid ha ahaato, ama dhaqaale xitaa meel aad dhiganaysid ha ahaato. intanada badan society-ga naga hadeertan Soomaalida ah, dhaqaalaha waxa meel ma dhigano. aad baan ugu daranahay dhaqaalaha. telefoon kastoo soo baxa inaan gadanaa rabnaa, mar kastoo suuqa timaada inaan gadanaa rabnaa. marka waxay taasi hadeertaan na tusinaysaa inaan nahay dad aan samir lahayn oo aad u samir yar. marka qofku wuxuu isleeyahay dhaqaale yar ayaa kusoo gala, haddaa dhahda dhaqaalahana waxban meel dhigayaa, wax aad u yar waaye, goormay aruurayaan, goormay wax weyn noqonayaan, iskaga baashaal. marka samirkii baa yar. samirku hadduu yar yahayna way adag tahay siduu qofkii uu tilaabo ku qaado. marka aan samirno insha Allah. ahdaaftanadana ha noqoto sidii bulkeetigaas oo kaleeto, oo midba mar aan qaadeyno. roob ayaa noo da-aaya, sheekadii oo dhan meeshaas kusoo gabagabeynaya yareyd oo aan kasoo qaaday memoirgii Will Smith. qof kasta sheeko ayuu leeyahay, mar kastaba ani saasaan dhahaa, qof kasta sheeko ayuu leeyahay, sheeko kastana qiimo ayay leedahay, micno aad u weyn ayay leedahay. sheeko kasta aad ayuu qof kastaba sheekadiisu interesting u tahay. laakiin inta badan sheekooyinka anagu ma sheegno, dadka kale sheekooyinkii qoreen waxyaabahaas ayaan tusaale usoo qaadanaa. soo maanta haddaad bilowd xitaa wax kastoo aad sameynaysid inaad document garaysid oo journal aad samaysatid, waxyaabaha yaryaroo kusoo wajahaya nolosha aad qortid, noloshaadi aad markaad aad ku yareed kusoo kordhay aad qodid oo kaleeto, oo aad wax qortid. wallaahi sheeko aad u cajiiba ayaa kasoo baxaysa, aad u cajiib. sheeko lala yaabo. dad badan ayaa xitaa waxaa laga yaabaa inay wanaag sheekada tahay, sheeko dad badan laga yaaba inay dhiiri geliso, oo ay sida hadeertaan Will Smith oo sheekadiisoo kaleeto ay muuqaaladan hadda aan soo gelinayo waqtigan la joogo. waxaad isku daydaa inaad asxaabtaada la wadaagtid, like-tana aad ka hilmaamin, sababtoo ah muuqaalka markuu qofka like saaro dad badan ayaa arkaya, meel badan ayuuna gaarayaa. algorithm-kana waxay u shaqeysaa the more likes uu video haysto, the more uu dadka kaleeto gaarsiinayo. marka by the way, xogaa waan bedelay styleka youtube-ka, sababtoo ah waxyaaba badan oo aan jeclahay inaan ka hadlayaa jira, waxyaaba badan oo interest aan u hayo, mararba mid ayaan tijaabinayaa. marka insha Allah wax kastoo aan jeclahay waxaan isku dayayaa, maadaama aan anigu qolkaan yarkaa meesha ku leeyahay, inaan wax kastoo markaasayta niyadeyda ku jiro ama aan danaynayo aan ka sheego. marka la wadaag asxaabtaada at least 3 qof ama 2 qof iska dheh. insha Allah the more support aan helo waa inoo kulan dambe oo kheyr qaba insha Allah.